dadka ducaada ah ee khayrka ka shaqaynaya ee munkarka reebaya kala duwan maanta waxay u baahan yihiin dhalinyarada fasaad iyo xumaan badan baa ku socda wax ka tan badan baa ku socda inay si naxariis leh dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam kula dhaqmaan colaad iyo waji kabax iyo dagaal iyo hiifid iyo canaan iyo waxyaabaha noocaas inaanay isugu darin tallaabada la ogol yahay munkarka noocaas inay ka joojiyaan u nasiixeeyaan waaniyaan si wanaagsan loogu soo caqli celiyo ayaynu maanta u baahannahay haddii laga maarmi waayo xakamaynta la xakamaynayo ee lagu edbinayo waxa weeye xariga lagu edbinayo waa xaalad dambe weey dhaqanka noocaas in aad iyo aad loogu dadaalo waayo ma doonayna nacayb iyo kala fogaansho in la sii abuuro hawshani markay dhacday waxa aad baraha bulshada ugu faafay nin culimada difaacaya iyo mid waxa weeye duulaan ku haya ama niyadiisu ha wanaagsanaata ama ha xumaato ma doonayna in la sii kala fogaado waayo dhalinyaradu waa udub dhaxaadka bulshada culimaduna waa tabadbaadadeennu ay ku jirto labadaba in la isku ilaaliyaa loo baahan yahay ciddii loo maaro waayo waxaa lala kaashanayaa maamulka oo tallaabadu ku habboon yahay baa la marinayaa in la isfahmaa waa qaali dadka xumaanta reebaya waajibkii ummadda saarnaabay gudanayaan mujtamacay badbaadinayaan laakiin ka xumaanta samaynayo ka joogso haddaad ka joogsan waydana bannaanka ha ula soo bixin